Assalaamu calaykum daawade halkan waa xogta qarsoon mar kale iyo muuqaalkani waxaan kaga hadlayaa dagaalka ka socda dooxada isdhiibibeeda ee Afghanistan mustaqbalka dooxada Panjshir oo mugdi ku jiro xilli uu soconayo dagaal culus muuqaalkani ayaan ku soo koobayaa haddii ay tahay markii ugu horreysay uu channelka ku soo gaaro bartan waa xogta qarsoon magaciiguna waa Yaxya Maxamuud Maxamed waxaan ka codsanayaa daawade inaad igu soo biirto mustaqbalka dooxada Panjshir ee wadanka Afghanistan oo ah meesha kaliya aan ku jirin gacanta Taliban ayaana weli kala cadeyn xilli uu soconayo dagaal culus ila wareedyo ka agdhow Taliban ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters inay qabsadeen aagaas ay yeesheen dagaalyahanada iska caawinta ayaa arintaas dagaashaan ku dururay mid ka mid ah xoogagga iska caawinta Amirullah Salah ayaa waxba kuma jiraan ku tilmaamay inuu cararay ay yeesheen waxa uu sheegay in xaalku adag yahay dagaalka ka soconaya Panjshir ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen 100 qof dooxada ku taal waqooyiga magaalada caasimadda ee Kabul ayaa ka mid ah gobolada ugu yar wadanka Afghanistan waana goobta kaliya aan soo galin gacanta Taliban goobtaas oo caadiyan lagu yaqaan in lagu mucaarado Taliban waxay hooy u tahay inta u dhaxaysa 150,000 ilaa 200,000 oo qof waxaana ay ku hareeraysan buuro dagaalyahanada wax iska caawinta oo ay ku jiraan ciidamo hore ugu tirsanaan jiray militariga Afghanistan iyo maleeshiyad maxalli ah ayaa waxaa hogaaminaya hogaamiyaha qabiilka halkaas degan ee Ahmed Mas'ud aabihii ayaa kula ka soo heeyay dagaalkii midowga Soviet kaas oo dalkaas galay 90meeyadii ilaa 80meeyadii iyo waliba ururka Taliban oo la dagaalamay bilowga 90meeyadii fariin muuqaal oo BBC u soo diray Mr. Salah madaxweyne ku-xigeenkii hore Afghanistan waxa uu ku sheegay in labada dhinac uu dagaalku khasaare ka soo gaaray waxaa shaki ku jira in xaaladdu ay adag tahay Talibanna weerarno ku soo haysa yiri hay'ashee wuxuu intaas ku daray misliibi doono Afghanistan ayaan u taaganahay waxa uu sheegay in muuqaalku soo diray si dadku uga xaqiijiyeen weerarka sheegay in dalku isaga baxay beenyihiin si kastaba xaalku ha ahaadee BBC-da ayaana si madax bannaan u xaqiijin karin deegaankaas iyadoo warbixinteeda aysan ku darin cali nasaari afhayeenka dagaalyahanada jabhadda iska caawinta qaranka ayaa waxa warbaahintu u sheegay in fallaagadu ay dib u riixday Taliban boqolaal dagaalyahanada Taliban ayaa godoon ku jira rasaasiintuna waa ay sii dhamaanayaan waxaana haatan socda wadahadalka isku dhiibi lahaayeen ay yidhi hay'ashee saraakiisha Taliban ayaa iyagana guul ka sheeganaya deegaankaas iyadoo taliyo uu ku sheegay wakaalada wararka Reuters in amarka aanu haatan maamulno guud ahaan Afghanistan dadka qaswadayaasha ayaa laga adkaaday Panjshirna haatan waxay ku jirtaa gacanteena yiri Taliban waxaa hadda gacanta ku haysa inta kale ee dalka waxaana lagu wadaa in maalmaha soo aadan inay ku dhawaaqdo dowlad cusub midowga Yurub iyo UK jimciye waxay ku biireen Mareykanka iyagoo sheegay in la tacaamuli doonaan kooxda Islaamiga ayay aan u aqoonsan doonin dowladda Afghanistan dagaalka culus wuxuu dhaxmaray xoogagga Taliban ee maleeshiyadka iska caawinta ee dooxada Panjshir Taliban wuxuu sheegay inay la wareegeen deegaan khasaaro culus ay gaarsiiyeen jabhadda iska caawinta ee NRF balse kooxda NRF waxay sheegtay inay gacanta ku hayaan marinada laga galo dooxada Taliban ay ka dileen boqolaal dagaalamayaal Panjshir waa gobolka kaliya oo aysan weli gacanta u gelin Taliban waxaana la rumaysan yahay in boqolaal dagaalamayaal ay halkaas ku sugan yihiin kooxaha iska caawinta waxaa ku jira madaxweyne ku-xigeenkii hore Afghanistan Amirullah Salah ciidamo hore ugu tirsanaan jiray militariga Afghanistan iyo maleeshiyad maxalli oo hogaaminayo hogaamiye qabali ah Ahmed Mas'ud Taliban oo hore u sheegtay inay wadahadal kula wareegi doonto dooxadan balse waxaa sidoo kale ay sheegtay inaysan meesha ka saari doonin suuragalnimada in sidoo kale xoog ay kula wareegaan afhayeen oo hadlay Taliban waxa uu sheegay in ciidamadooda halka ay galeen kadib wadahadalada socon waayeen afhayeenka kooxdana waxa uu sheegay wakaalada wararka ee Faransiiska AFP in wiilka Ahmed Shah Mas'ud uu ku ururiyo 9,000 oo dagaalyahanada dooxada Panjshir oo ku taal waqooyiga bariga caasimadda Kabul Ahmed Mas'ud oo wiil u dhalay hogaamiyihii galbeedka isbaaysiga waqooyiga dalka Afghanistan Ahmed Shah Mas'ud ayaa u sheegay wargeyska Been Arab inuu diyaar u yahay in wadahadal ula yeesho Taliban si loo baajiyo dagaal ka dhaca dalka balse waxa uu ku adkaystay in kooxda meesha ka saarto xajnimada Mas'ud waxa uu sheegay in muhiim tahay isla markaana ay doonayaan in dadka reer Afghanistan ay soo afjaraan dagaalka socday muddada 40 sano waxaana uu sheegay in sidoo kale loo baahan yahay in dadka reer Afghanistan ay haystaan waxyaabaha aasaasi oo ay ka mid yihiin baahinta xukunka dhinaca kalena kooxda Taliban waxay u badan tahay inay go'doon caalami ah geli doonaan iyadoo malaayiin reer Afghanistan ay wajahayaan mustaqbal aan la hubin awoodaha adduunka ayaa hadda u xusuuduubaya sida ay saameyn ugu yeelan lahaayeen soo noqoshada taliyayaasha Islaamiga ah ee dalka hawshaasna waxaa ka soo baxay labada qaran oo ka kala yimid dunida Carabta iyo Muslimka oo dhexdhexaadiyaal iyo fudayaal muhiim ah waa Qatar iyo Turkiga labaduba waxay ka faa'iideysanayaan taariikhdii ugu dambeysay ee helitaanka Taliban laakiin labaduba waxay qaadanayaan qamaar taas oo xitaa sii kicin karta xifaaltanka hore ee bariga dhexe mid ka sii fog
mas-uuliyiinta dalka yar ee qatar ee gaaska hodanka ku ay ku yaal khaliijka ayaa bixiya halbowlaha gargaarka wadamada isku dayaya inay bixiyaan dalkaas, laakiin isku xidhka iyo raadinta Taliban ayaa laga yaabaa inay weli ku jirto khatar dhanka mustaqbalka oo ay ka mid tahay awoodda lagu sii xumeyn karo mid ka mid ah qadadka khaldan ee bariga dhexe. Turkiga iyo qatar ayaa aad ugu dhow dhaqdhaqaaqyada islaamiyiinta gobolka, kuwaas oo had iyo jeer xiisad ka dhex abuura quwadaha sida Masar, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta, kuwaas oo arka kooxdaas inay yihiin halis taagan. Inta ay Talibanku awoodda hayeen sagaashameeyadii, 3 dal oo keliya ayaa xiriir rasmi ah la lahaa: Bakistan, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka. Labada dambe ayaa jaray dhammaadka xiriirka rasmiga wixii ka dambeeyay weeraradii 11 Sebtembar 2001 Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, maalgelin qarsoodi ah oo ka timid shakhsiyaad Sacuudiyaan ayaa la sheegay inay socotay sanado kadib. Saraakiisha Sacuudiga ayaa hore u beeniyay jiritaanka maaliyad rasmi ah oo ay siiyaan Taliban, waxaana ay sheegeen inay jiraan tallaabooyin adag oo lagu joojinayo qulqulka lacagaha gargaarka. Laakiin markii joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan uu noqday mid aan la jeclayn dadka Mareykanku, albaab diblomaasiyadeed ayuu u furay dowlado badan. Qatar iyo Turkiga xiriirkooda Taliban ayaa siyaabooyin kala duwan u sii horumaray, iyadoo maamulka madaxweynihii hore Barack Obama uu damacsanaa inuu soo afjaro dagaalka. Qatar waxay martigelisay hogaamiyaasha Taliban si ay u wada hadlaan nabadna laga bilaabo 2011 ayaa arrintaasi dhacday. Waxay ahayd geedi socod muran badan dhaliyay aragti calanka Taliban oo kula lulinaya xaafadaha quruxda badan ee Dooxa oo ay dirsadeen dad badan. Waxay gaabiyeen birtii calanka kadib codsiyo Mareykan ah. Dadka reer Qatar waxay ka caawisay inay horumariyaan hami muddo 30 sano ay ku aadanaa inay qayb ka noqdaan siyaasadda dibadda ayagoo ka madax bannaana, taas oo ay u arkaan inay muhiim u tahay qaran xaaladiisu fadhiso xilli ay u dhexeeyaan tiirarka gobolka Iiraan iyo Sacuudiga. Wadahadaladii Dooxa ayaa ku dhammaaday heshiis sanadkii hore ee madaxweynaha Mareykanka kan ka horeeyay Donald Trump oo ah in Mareykanku uu ka baxo Afghanistan bisha May ee sanadkan. Kadib markii xafiisku la wareegay, Joe Biden wuxuu ku dhawaaqay inuu kordhiyo waqtiga kama dambayska ee bixitaanka buuxa kana dhigay ilaa 11 Sebtembar. Turkiga oo xiriir taariikhiyeed iyo mid qowmiyadeed oo xoog leh ku leh Afghanistan ayaa diyaar la ahaa ciidamada dagaalka ku jooginaya hubinta kaliya Muslim ah, isla markaana ugu badan isbahaysiga NATO, sida laga soo xigtay falaqayaasha xiriir sirdoon u dhow ee la yeesheen qaar ka mid ah maleeshiyaadka xiriirka la leh Taliban. Turkiga ayaa sidoo kale xulafo la ah Bakistan oo dariska la ah. Toddobaadkii la soo dhaafay, mas-uuliyiinta Turkiga ayaa wadahadalo waxay la yeesheen Taliban muddo 3 saacadood ah xilli ay foodo ka tageen garoonka diyaaradaha Kabul. Doodaha qaarkood waxay ku saabsanaayeen mustaqbalka shaqada garoonka diyaaradaha laftiisa, kaasoo ciidamada Turkiga ilaalo ay ka hayaan muddo 6 sano ah. Madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu fiirinayo fariimaha hogaamiyaasha Taliban isagoo leh rajo wanaagsan ayaan ka qabnaa, waxaana intaas ku daray inuusan cidna ka sugi doonin ogolaanshiyo ku saabsan cidda uu la hadlayo marka wax laga weydiiyo dhaleeceyn la xidhiidha wadahadalkiisa Dooxadaas. Dalal badan ayaa isku dayay inay sii wataan qaab ay xiriir ula sameeyaan Taliban tani markii ay qabsadeen Kabul, laakiin Turkiga wuxuu ka mid yahay kuwa awoodda xooggan leh in xiriirkooda ay sii horumariyaan. Dhanka Qatar, mas-uuliyiintu waxay rajeynayaan in doorkooda dhexdhexaadinta ay yareyn doonto halkii ay sii kordhin lahaayeen. Dooxa waxay dhexdhexaadisay wadaxaajoodyo u dhexeeya kooxaha tartamaya dhowr mar. Colaadaha waaweyn ee bariga dhexe ayaana dhexdhexaad u ahaayeen, laakiin wixii ka dambeeyay kacdoonkii Carabta, kuwa ay iska soo horjeediyaan ee khaliijka waxay ku eedeeyeen inay la safteen islaamiyiinta. Sanadkii 2017, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka, Masar iyo Bahrain xiriirka ayaa u jareen, inkastoo dib loo soo celiyay iyadoo lagu eedeeyay Qatar inay u dhowdahay Iiraan, isla markaana ay sii horinayso xasilooni darrada iyadoo adeegsanaysa kanaalka wararka dowladda ee lagu magacaabo Al Jazeera. Gudahaan daawadayaal waa naga intaa muuqaalkeeni maanta. Nabadgelyo.